Ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha. Doodii inta badneed taagneed ee ahaa waa kuma guudka dunida cagta ee dunida kubadda cagta ee ragga oo la soo gebagabeeyey, taasuu qiimeyn sameeyey Professor dhiga jaamacadda Oxford. Dhaawacii soo gaadhay xalay ee daafaca Liverpool Van Dijk waa dhaawac intee le'eg. Kun Aguero oo diiday inuu xidho nambarka 10aad ee kooxda Barcelona. Cristiano Ronaldo oo sheegay in uu wacdar dhigi doono ciyaarta uu la ciyaarayo Newcastle maadaama dunidu indhaha ku hayaan. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan. Doodii kubadda cagta ee inta badan taagneed waa kuma guudka kubadda cagta ee dhinaca ragga. Waxaa soo gebagabeeyey Professor dhiga jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka. Xisaabiyahan ka howlgala jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka ayaa ku dooday inuu soo afmeeray meel saaray dooda xiddiga ugu fiican taariikhda kubadda cagta. Xisaabiyahankan ayaa lagu magacaabay Dr. Tom adeegsanaya qaacidooyin uu dhinacyo badan ka eegayo guulaha ay soo gaadheen ayaa isbarbardhig sameeyey si uu jawaab uga helo dooda muddada dheer taagneed ee kubadda cagta. Professorkan ayaa dhowr 7 meelood qiimeyn ka sameeyey, taasuu sheegay inuu ku garaacay xiddiga Cristiano Ronaldo in xiddigaha waaweyn ee kale Lionel Messi, Pele, Puskas iyo Alvaro Di Santana. Qiimeyntan uu sheegay inuu 7 meelood ka eegay 7 meelood ayaanu midmid u eegi doonaa. Qodobka koowaad wuxuu yidhi koobka xiddig kasta heer kooxeed ku qaadayo iyadoo la qiimeynayo muhiimadda horyaalada kala duwan iyo koobabka. 2 koobka heer caalami ama heer qaran. 3 goolasha laga dhaliyay heer kooxeed. 4 goolasha heer qaran. 5 balan doorka ay ku guuleysteen iyo codadka ay heleen. 6 tirada rikoodhada ay ka heleen hogaamiye dhinacyo kasta. 7 ugu dambeyn Dr. Tom ayaa sameeyey qaacido ku magacaabay Z Factor oo ku qiimeynaya tirada xilli ciyaareed ciyaaryahankaas iyo goolasha si gaar ugu hogaamiyey kooxiisa. Qiimeyntii uu sameeyey 10 ciyaaryahan ee dunida soo maray ugu fiicnaa sidan ayuu ku kala sheegay. Kaalinta koowaad wuxuu siiyey Cristiano Ronaldo oo helay 530 dhibcood. Lionel Messi oo kaalinta labaad galay wuxuu siiyey 503 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa galay Pele 459 dhibcood helay. Kaalinta afraad waxaa helay Puskas oo 305 dhibcood helay. Kaalinta shanaad waxaa galay Ronaldo Nazario oo 261 dhibcood helay. Kaalinta lixaad waxaa galay Marco van Basten oo helay 237 dhibcood. Kaalinta toddobaad waxaa galay Alvaro Di Santana oo 201 dhibcood. Kaalinta sideedaad waxaa galay Michael Platini oo helay 177 dhibcood. Kaalinta sagaalaad waxaa galay Diego Armando Maradona oo helay 169 dhibcood. Kaalinta tobnaad waxaa galay Johan Cruyff oo helay 163 dhibcood. Daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa dhaawac soo gaadhay dhammaadkii kulankii xalay oo xulkiisa u ciyaaray Holland ay 6-1 kaga adkaatay dhigooda Turkiga. Van Dijk ayaa dhaawacan u gaaray kadib markii si xun isugu dhaceen Halil oo ahaa ciyaartoy Turkiya, taasoo keentay in xitaa xulkii Turkigu ay helaan goolkooda qura ay la yimaadeen. In muddo ayuu Van Dijk dhex yaalay garoonka gudihiisa iyadoo laga dareemay inuu dhaawac soo gaadhay caqabka, taasoo weliba ku abuurtay jamaahiirta Liverpool ee daawanayay kulankaas. Waxaa la xasuustaa in laacibkan inta badan xilli ciyaareedkii hore dhaawac jilibka ah ku maqnaa. Dhaawacan oo kale ayaana laga yaabaa in muddo kale laga maqnaado garoonka, iyadoo taasi iminka wararka qaar sheegaya inuu dhaawaciisu ah mid aad halis aan ahayn oo mid fudud yahay oo markaba soo laaban karo. Garabka kooxda Newcastle United Alex Messina ayaa doonaya inuu wacdar ka dhigo ciyaarta ay toddobaadka ka hortageen dhigooda Man United.
ay ku booqanayaan Old Trafford, iyadoo kulankaas uu noqon doono midka koowaad oo Ronaldo ciyaaro tan iyo markuu dib ugu soo laabtay kooxdiisa cusub. Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuu ciyaarta wacdaro dhigi doono maadaama indhaha caalamka oo dhan soo eegayaan, taasoo noqon doona kulankiisii ugu horreeyay muddo 12 sannadood oo ku soo noqdo garoonka Old Trafford, taasoo muddada aad u dheer oo ka maqnaa. Xiddiga dhawaangalkaas ah ee kooxda Barcelona Sergio Aguero ayaa sheegay inuu diiday inuu qaato nambarka 10aad maadaama saaxiibkiisii hore ee Lionel Messi oo ahaa legendka kooxda ee Barcelona ee soo mara uu diiday inuu xidho maadaama taasuu qiimo weyn u haya saaxiibkiisii hore, oo uu sheegay inuu isaga dartii ugu soo biray kooxda Barcelona, isagoo caddeeyay in kooxda Barcelona qiyaamo kula kacday uu doonayay inuu Messi ka garab ciyaaro.